cabdikariin arrinta ah soo jiidashada in dawladdu ay tahay dawlad dibashisiineed haddaan tusaale usoo qaadano magaalada muqdisho beelaha hawiye beelaha dhaqanka ee hawiye ee degan magaalada muqdisho dawladda Soomaaliya way la kulantay oo madaxweynaha dawladda federaalka meel gaarka ayaa la kulmay waxaad moodaa in sidoo kale iyagana in ay habacsanaan soo kala dhex gashay oo dawladda Ethiopia hadba dhinac ay la shirto oo dawladuna ay markaa la shirto qabiiladina ay la shirto taas miyaysan ahayn mid markaa wiiqaysa habkii nabadda oo martay dawladdii ay ku hana qaadi lahayd sidii nabadda ay ku qabsan lahayd magaalada muqdisho wal horta waxa nasiib darro ah in adiga oo wariye ah adduunka oo dhan laga dhageysanay in carab aad qabiil carabka ku dhufato gartay qabiilkaas hadda carabka ku dhufatay Soomaalinkii dawladii naga burburiyay Soomaaliya gartay waxa la isticmaalaa oo kaliya markii la rabay in dawladda burburiyo laakiin cabdikariin aan ereyga way isticmaalaan oo waa beelaha dhaqanka hawiye ee muqdisho waa dhaqan taagan oo dadka yiraahda international community way yiraahdaan meediana way yiraahdaan marka waxaan filayaa in arrintaas aysan curudaar ahayn kama hadlayo dhageys waxaan rabnaa inaan ka gudubno magaca ereyga aan arabno Soomaaliya qabiil laga gudbaa la rabaa waxa la rabaa Soomaaliya inay gaarto maanta cabdikariin haddaan runta laga hadlin laakiin waa dhibaato magaalada muqdisho dadka degan waa yagi haddii dawladda aysan la heshiin dhibaata dhacaysa haddii dawladdii martaqaanaa ay la kala hadasho oo ciidamada Ethiopia qaar wadato hadda sidaan maqlaynay magaalada muqdisho dhib baa ka taagan suuqii bukaaraha maalin walba dhib baa ka taagan dagaal baa ka dhaca oo ciidamadii dawladda ku meel gaarkaana waa lagu dilaa kuwii kalena way ku dhintaan shacabkiina wuu laaday marka maxaa xal cabdikariin in magaalada dhibaato ka taagan tahay in suuqii bakaara dhibaato ka taagan tahay in muqdisho dhibaato ka taagan tahay in mataqaanaa dadkii ay baabeen in dadkii ay barakaceen in mataqaanaa yacni dhibaato dil badan iyo yacni rafaad badan inuu ka dhacay ma lagu diidana waxaas dhacay oo dhan waxa mas'uul ka ah dawladda ilaa dawladnimo ayaa la sheeganaya laakiin waxaan ku diidanahay kelmadda aad ku dhufanaysid carabka oo dadka si kala fogeynayso waayo muqdisho waxa ku nool dad aanan ahayn dadkaas baa ku nool oo loo baahan yahay hanti kule muqdisho waa meel Soomaaliya dhan ay wada leedahay waaye meel cid hal shakhsi u leh ma laha deegaan ahaan hadii la yiraahdo laakiin lahaanshiya hadda waa la wada leeyahay marka waxaan ka codsanayaa marka u horeysa in arrintaas aad mataqaanaa ka fojignato dadkaas walaalaheen ah ee aad sheegtay ee guddiga ahna iyaga naftirkooda waxa ay wadaan sidii maslaxad Soomaaliyeed loo gaari lahaa la kulanka beelaha degan magaalada muqdisho ceeb ma dawladdu inay la kulantaa beelihii Soomaaliyeed inay la kulantaa oo ay soo jiidataa hab ceeba ma ahan cabdikariin dawladdii baa tihiin ambassador baa tahay dawladdii u fadhiya in beelihii deganaa xamar oo dhibku uu ku dhacayo dawladdii haddaad tihiin inaad la kulantaan ceeb ma aha cabdikariin arrintu ma aha sida aad u jiidaysid ma aha waayo waxa loo baahan yahay marka u horeyso hadii loo hadlayo qabiilna dawladdu qabiil ma aha dawladdu waxa ay la fariisanaysaa cid walba la fariisanaysaa dawladdu waxa ay loo baahan yahay inay la fariisato haba yaraatee yacni qolo kasta oo Soomaali ah meel kasta oo ay joogto hase ahaatee muqdisho dhibaatadeeda maanta ka socotahay Soomaaliya oo dhan bay khusaysaa ma aha mataqaanaa yacni cid ama qabiil khaas ah ma khusayso laakiin dhibaatada muqdisho ka dhacaysahay marka runta ku sheego waxa boqolkiiba boqol mas'uuliyadda ay ka saaran tahay dawladda maadaama dawladnimo ay sheeganayso ayaga laga rabaa inay xaliyaan laakiin qaabka aad ugu dhufanaysaan carabka qabiil ahaan waa qaab aan runtii idinku diidana laakiin waxa loo baahan yahay in dawladdu ay cid walba la fariisto si u soo dhaweyso waana prime ministerkana waa ka hadda ku dhawaaqay oo dhahaya waxaanu la fariisanaynaa cid walba unconditional dadkana waxaan ka codsanaynaa inay prime ministerka soo dhaweeyaan iyaga oo mataqaanaa ka faa'iideysanaya jaaniskaas cusub ee hadda uu fidiya asaga cabdikariin waan ka soconaynaa arrinta waxaan gelaynaa hab United Nationka iyo sidoo kale qaramada Afrika waxay qoondeeyeen in ay soo dhameystiri doonaan ciidamada ka harsan ee jooga Soomaaliya ilaa hadda waxa jira in ciidamada Uganda ay joogaan wadankii iyo ciidamo kale oo Burundi oo aad u tiro yar dhameystirkaasi maadaama aad tahay ambassador oo aad u joogtid qaramada Afrika Soomaaliya maxaad xoga ka ogtahay arrintaas ninkii mataqaanaa yacni arrimahan bishu gareynaya baan ahay ama qoraalada Afrika u gudbiyay in mataqaanaa ay ciidamadaasi Soomaaliya tagaan markii uu horeysay sida aad la socotid ciidamada markaan codsanayna waxay ahayd 9 batalyan bay ahaayeen in ciidamadu ay Soomaaliya galaan qorshuhuna waxa uu ahaa in ay mataqaanaa difaacaan xarunta dawladda ay ku leedahay Baydhabo ciidamada markii hore maadaama ay yar yihiin waxa loogu talagalay in Baydhabo difaacaan si aan ciidamo Ethiopian dalka aysan u galin laakiin nasiib darro ciidamadii oo la ogolaaday oo aanan wali imaan
ayaa mataqaanaa yani dagaalkii dhacay Ethiopiankii baa galay marka maadaama ciidamadii ay yimideen waxa ay galeen Muqdisho tageen dhulkii dhan baa weynaaday marka hadda tirada ciidan ee loo baahan yahay inay Soomaaliya galaan waa ka badan tahay tii markii hore la qorsheeyay koow labo ciidamada dhima naftirkoodu for example Burundi oo kale waa la socota waa dawlad tabar yar sideen oo kale ama Soomaaliya hadda naftirkooda ciidamada dalkooda ku jiro waxa loo baahan yahay inay ayagu naftirkooda ay laba batalyan noo soo diraan hadda 500 bay direen waxa dhiman 1500 baa dhiman oo ciidan inay soo diraan waxa ka dhiman logisticadii baa ka dhiman mataqaana Berdin wax la yiraahdo jiro ciidanka la siiyo inta ay maqan yihiin waa ka dhiman yihiin mataqaana dawladda Nigeria kale hal batalyan bay soo direysay iyagu hadda waa diyaar inay soo diraan ay rabaan Benin laba batalyan bay soo direysay mataqaana yani dawladdan la yiraahdo Ghana ay hal batalyan bay soo direysay marka sida aan qorsheynayna hadda ilaa iyo bish soo socota ama bisha ku xigta dhamaadkeeda waxaa la filayaa in dhammaan ciidamada Afrikaanka ay Muqdisho galaan taana waxay reduce garanaysaa marka in ciidamada Ethiopiaanka ay ka soo baxaan magaalada Muqdisho arinta waad ku mahadsan tahay sida uga faalootay arintaasi waxaan jeclahay haddana inaad dadka madmadow kaga jira Soomaalida inaad ka saarto maadaama aad tahay ambassador oo wax badan aad ka og tahay dawladda federaalka meel gaarka iyo wadankii aad ka timidba waxa dadka inta badan aan maqalnaa oo aan raadiyaasha iyo idaacadahan ka dhageysanaa Soomaaliya argagixisaa joogta iyo terroristiga arrimahaasi haddaan Soomaaliya ku sheegana waa dadka xagga jira ama xag jira sida yiraahdaan reer galbeedka marka Soomaaliya Cabdikariin argagixisa ma joogta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad su'aashaasi weydiiso I'm very glad inaad su'aashaasi weydiiso runtii marka aanu leenahay Soomaaliya argagixisa joogto yani laba arrin baan ayaan ka wadnaa koow qof Soomaali ah oo dhalashadiisu Soomaali tahay oo mataqaana Soomaali ku abtirsada oo Soomaali mataqaana yani dhaqankiisa iyo diintiisa caadadiisa ay Soomaali tahay ma lagu nisbay karo inuu yahay argagixiso dhulkiisa joogta haba yaraatee laakiin oo ma dhahayno qof Soomaali ay argagixisa ah يعني marka aanu kalmadaas isticmaalayno su'aashiisa ay weydiisay runtii aad baan ugu faraxsanahay ma dhahayno qof Soomaali ay argagixisa ah waayo qofka Soomaaliga ah qaar baa waxay diideen Ethiopiaanka oo la dagaalaya xaq bay u leeyihiin la dagaalaan markay mataqaana yani ama dawladda ka soo horjeedaan baa jira ama mataqaana yani fikirkooda ama beliefkooda ayaa ah in dalkii mataqaana dad ay dagaal kala dhaxeeyay inuu qabsado baa dhici karta laguma dhihi karo dadkaas argagixisa waaye lama dhihi karo waxa dadka dagaalamaya argagixisa ma waxa dhici karta waxa dhici karta oo kaleeto in mataqaana dawladda federaalka ahi aanan ka soo horjeedo anaga naftirkayaga marka qofkii naga soo horjeeday ama bolisiga naga soo horjeeday ama fikir aan ka soo horjeeday ilaa rag baan ishaynaa waad la socotaa markii Muqdisho aan mataqaana galina rag baan isqabanay raggaan isqabanay micnaheedu ma ahayn argagixisayiin maaha laakiin mid baa jirta ragga argagixisada ah ee adduunka raadinaya waa joogaan Soomaaliya Mareykanka raadinaya waxa raadinaya mataqaana Europeanka raadinaya ragii mataqaana yani Kenya safaaradda Mareykanka Kenya iyo safaaradda Addis Ababa mataqaana safaaradda la yiraahdo mataqaana Tanzania ragii qarxi Soomaaliya ay ku jiraan rag kale oo badan oo adduunka ka yimiday baa jir fiiri waxaan ku sheegaya gabdhihii Soomaaliyeed ee maalin dhexdaas ah dhowr iyo 10 ah ee baska saarnaa ee jaadka raadsanayay ee hilibkoodii la kala saaray waayay wixii qarxiyay Soomaali yani dhaqanka saas anagu ma lihin Soomaali ma laha qof inuu inta isqarxiyo ma laha marka waxaan ugu dhex jira ama dalka yimiday ama dadka iyagii mataqaana isticmaalaya waxa weeye rag ajnabiya baa ku jira oo aan leenahay waa terrorist international community oo raadinay marka waxa loo baahan yahay in la kala saaro oo distinguish loo kala sameeyo yes waa jira ajnabiya oo argagixisa ah oo dadkayga ku dhex jira oo dadkayga baabiinaya oo dadkayga dhibaato u soo jiidaya oo adduunka laga raadinayo kuwaas waa argagixisa ma leenahay laakiin dadka beliefkooda iyo aqligooda iyo mataqaana mabda'ooda ku dagaalaya ee Soomaaliya jooga ama anagana la dagaalan ama Ethiopian la dagaalan marnaba lama dhihi karo waa dad argagixisa ah Cabdikariin waxaa jirta sidoo kale in aan maqalno oo hadiyo goorba ay soo gaarto oo ilaa hadda lala yaaban yahay dadkan aqoon-yahanada dadka barnaamijyada Soomaalida ay tiraahdo dadka sharafta leh ee Soomaaliya culimo u diinkii dadka aqoonta leh dadka laynaya ee iska dilaya macna darrada isla markaana dawladdii Soomaaliyeed markii qofkii la dilo waa la duugaa meeshaas looga dhaqaaqaa ilaa ma haddana wax haaba yaraatee dabagal ah oo dadka lagu sameynayo oo soo qabanaya ama booliis ha ahaato ama ciidamada nabad sugidda ha ahaatee dabagalay ilaa waa dhowr sano marka meeshay wax ka dhacaana waa magaalada Muqdisho oo dadkaas dadka dilaya laynaya maxaad kala socotaa arrintaas well horta ayadana
runtii aan ku faraxsanahay weeye waana wax laga xumaada maanta waayo dad marka la rabo in la halaago waxa laga dilaa wax karadka ayaa laga dilaa baa leeyahay marka waxyaalaha hadda aan ku sheegayay wax daba socdo weeye oo mataqaanaa nacamtii dad shisheeye ama fikir shisheeye horta Soomaaliya waxay u degi lahayd marka aan runta ku sheego wadamo shisheeye iska soo horjeeda interestigooda baa ku dhex jirnaa horta facts ka jira waay waxna loo baahan arrintaas in aqoonyahanka Soomaaliyeed inay inta fikiraan dhidhiyaan ay wax badan liqaan oo ay dadnimadii iyo qarannimadii Soomaaliyeed inay ku soo noqdaan iyagu ay dib u abaabulaan dalkooda iyo dadkooda ayaa loo baahan yahay arrinta labaad ee jirta waxay tahay dawladda federaalka inta aysan Muqdisho iman ka hor dadkan wala laay jiray marka dad badan baa maqlaa inta badan yiraahdo dawladda baa xitaa wax layso marka waxaan ku sheegayaa sida hadda aad sheegtayba horta waxay ahaayeen wax soo socda bay ahaayeen laakiin hadda sida aan ka warqabo يعني دولة فدرالك international community rag aan ka codsanay oo mataqaana dambiyada baara arintaasi runtii dad baa hadda ku jiro si hoose bay u socotaa mana rabo inaan ka hor dhaco laakiin mar dhow waxa la soo saari doonaa waa la publish gareey doonaa arintan si hoose u warbixin ku saabsan arintaas dadka dilaya laba su'aal baa ii dhiman kadibna waan ka baxaynaa laba su'aal ii dhiman midna waa mid Somaliland ku saabsan midna waa mid doorashada soo socota ku saabsan Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku hormaro midda Somaliland waxaa jirta in ay doonayso in la aqoonsado oo ilama hadda waxay raadiyaan in aqoonsi ay helaan dowladda federaalka meel gaarka ah Soomaaliya waxay la xirbanaysaa in ay habkii federalismka dowladii Soomaaliya ku maamusho waxaa jirta in baasaboorradii Soomaaliya la adeegsado oo dowladii federaalka Soomaaliya qofkii Soomaaliya ka soo baxaya baasaboorradii Soomaaliya adeegsato marka habkaas dadkaas Somaliland ama waqooyi galbeed Soomaaliya baasaboorkee bay ku baxaan maadaama ambassador aad tahay wax badan aad og tahay dad badan baa shaki xoogaa ka galay dadka waxa ay ku soo dhoofaan muxuu yahay Cabdikariim wal marka uu horeyso horta sida aad la socotid adduunka waxa xukuma sharciyo xukuma ama mataqaana nidaamka adduunka xukuma nidaamka adduunka xukuma waxa ugu sareeyo UN-ka ugu sareeyo kadib waxa uu leeyahay subsidiary organization marka maadaama anagu aan Afrika ku nool African Union kan hoos tagnaa kadib IGAD baan hoos tagnaa sidaas horta adduunka oo mataqaana yani u xiransan yahay adduunka laba Soomaali laga ma yaqaan hal Soomaali waa laga aqoonsan yahay Soomaalida laga aqoonsan yahay waa yani jamhuuriyadda Soomaaliya weeye UN-ka waa Soomaaliya aqoonsan African Union-ka aqoonsan IGAD baa aqoonsan League Arab State baa aqoonsan intaasna member state baan ka nahay maadaama mataqaana Soomaaliya la aqoonsan yahay يعني qolada aa sheegtay kuma maqal in aqoonsigooda mataqaana halkaas uu ku jiro waliba aniga waxaan fadhiyay African Union ka baan fadhiyay oo meelaha ugu horeeyo oo mataqaana yani arrimaha Soomaaliya aad looga hadlo inta aan UN-ka aan la gaarin marka Cabdikariim ma jiro Soomaaliya baasaboor Somaliland gooni u leedahay oo ay ku dhoofi karto well aniga ma doonayo inaan ka hadlo wax private ah laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo wax Soomaaliya dhan u dhaxeeyo oo aan ogahay baasaboorka lagu dhoofaa ee aan ogahay mataqaana adduunka ka rajisgaraysan ee lagu soco karahay mataqaana yani Ethiopia aan ogahay inay mataqaana yani ay lagu soo galo aan ogahay in safaaradaha kaleeto visa looga qaatahay waa oo ay dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel kasta Soomaaliya ka joogaan ay ku safraan waxa ay tahay baasaboorka Soomaaliya arrintan raggan walaalaheen ee Somaliland runtii aniga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo aan marnaba mataqaana yani wax laga mahad celiyo ah يعني سيدا أي أوجسارين إبادة دلكود وحنا لو بهاي وحاس أرنتاس وأرن لو أبال مريو ورنتي متقنا لو يعني جرجارو ومداس سوماليات ماشاس دجن إس أبابو شيء إبادة متقنا يعني ما واحد جعلان لهذا واحد مقدش كنا عاه كلنا رجيس كنا عنا جعلان لهذا ما وحلا أجا حوي مركا مرنبا إن متقنا لينك أكو سميسان معها أما متقنا هوايرات يعني اللي إسكحر معها aqoonsi marka ay tahay aqoonsi waxa aqoonsada international community aqoonsada arinta waxaan qabaa marka in international community ga loo daayo dadka walaalaha ana ay halka degan sidii mataqaana nabadooda iyo wax garadkooda iyo sidii ay mataqaana dadkooda ku hormarin lahayn in ummadda Soomaaliyeed ay kala shaqeyso ayaan qabaa Cabdikariim waqtiga ugu yar su'aasha ugu dambaysa oo ah doorashada Soomaaliya ka dhici doonta sanadka 2009 markii la gaaro waxa jirta in axdiga federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya u dagsan in dawladda Soomaaliya ay dhici doonto sanadka 2009 markii la gaaro halkaas oo doorashooyin xor ay ka dhici doonto ma dhici doonaan doorashooyinkaas Cabdikariim I hope so yes waa sida aan aaminsanahay ilaa hadda wax isbedel ma hayno 2009 October dawladda federaalka ahay charterkeeda waxa ku qoran inay dawladda dhacday ay dhamaatay ka horna waxa la rabaa in constitution la diyaariyo waxa